sanadka cusub sanadkan cusub ee January la sheegayo ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay waqtiga ugu horeeya waa 45 BC ee loo dabaaldego waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin waqti dambe dib loo soo celiyay kalendarkani waa kalendar Roman kalendar Roman isku waa wathaniyiintii hore Juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan July la yiraahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyay Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabay bilaha kala qayb ka midina waa ilaahiye magacyadood March waa ilaah dagaalka ilaahul harb bay March yiraahdaan waa ilaahiye magacyadood qaybaha dambana waa tiro September October November December Sep waa bishii toddobaad Oct waa bishii sideedaad Nov waa bishii sagaalaad Des inaga decimal iyo waxa sheegnaa waa bishii tobnaad oo hadda maxal 12 ka dhigay maxay soo weydaariyay boqoradan bay soo weydaariyay Julius baa 760 maalmood xagga hore kaga daray oo January February ku soo darsaday kadib Gregory Boobkii la oran jiray أيام جوليوس وقت يصير بش سنة كواحد الحسابين شري سدح بقول شنية لحدا إيوه 0.24 وحلو قاعدين حساب تاسع قلدمتي قلب كسوح وكينية سنة كيبر دور منت كوبية 8 منتين يصابحان ويكوينكس كمرك الحسابية سولار سيستم كأنه قلدانية سأد ردد أي واحد قاعدين هذا واحد حسابينا هي سدح بقول شنية لحدا iyo 0.25 kun shan boqol iyo 280 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 October khamiis oo bishu afar tahay jimciye ku xigay ayuun la yiri waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday لا بقول السنوات إن كنا دوبو ديدنا إنجليزكو 1752 مالهاسي أي سنة إسكاق بلاي مركا إسكا وقت جيبه وكسي كورنايو كوبي 8 مالمود بيسقو جوري مالهاسي على كل حال وحا قال ولا قضيه هري يدبو جورتي سنة مدى وحده وبحثتي محاد ولد بلدك صادق كاغا حيران ها عيد كدغاي هبيراته ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wa diinta waa diin dhamaystiray baa ilaahayna leeyahay muslimiinta dibta qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen bulsho noociyad tira badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen